السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا كيستا تي في برنامج كله برنامج كان مانتا اياه 10 ير او غابان او كسابسن واتسابكا واتساب ayaa waxa ay soo kordhiyeen dark mode ama ina shaashada madoweysan kartid si habeenkii aysan indhaha kaaga qaban hadaba sida aad u enable gareysanaysid ila soco taabada ugu horeyso whatsapp kaaga fureysaa markii aad furto whatsapp kaaga waxa tagaysaa chats ba tagaysaa meesha chats status iyo calls waa ku kala qoran chats ka taabanaysaa chats ka marka taabato chats ka ku soo baxayo meeshan u koreysa oo saddexda dhaad leh saddexda dhibic more options baa la yiraahdaa kaasa taabanaysaa marka taabato waxa tagaysaa setting kaaga meesha hadaan taabanayo setting ka taabanaysaa setting ka marka tagto chats waa kana account uu ka hooseeya theme ka waa kana theme ka marka hore bright busan ka yahay qof walba waa inuu on ka dhigtaa hadaadan on ka dhiganin bright buka ahaanaya ama cadaan buka ahaanaya laakiin daa on ka dhigato habeenkii indhaha kaama qabanayo hurdo la'aana kugu ridaayo marka waxaad yeelaysaa theme ka meesha theme ay ku qoran tahay display ga hoostiisa tagaysaa dark baan ka dhigayaa marka dark ka dhigto oo okay aad taabato oo arkaysaa whatsapp kaaga sida uu noqday shaashadiisa iyo screenkiisa waa indhaha waa kala roon yihiin habeenkiina dadka badankood habeenkii isticmaalan chiefka waa u roon yahay hurdo la'aan kuma dhigaayo so inaad ay saasa u kala samaynaysaa marka hore haddii aan idinku soo celiyo stepka koowaad waxa waaye whatsapp ka furanaysaa markaa furato chats status iyo calls meelahaas ku jooga so waxaad tegaysaa saddexdan alif oo kor ku taalo oo qaybtaas more options setting ka tegaysaa chats baa tegaysaa chat markaa taabato theme ka wakaas light hadaa ka dhigtana waa maalinkii dark hadaa ka dhigtana waa habeenkii waa ugu talagaleen nimankan whatsapp waxaa iskale facebook intaasaan raba inaan idinla wadaago I hope inaad ka faa'iideen don't forget to subscribe gareystaan channelka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.